sheekada farxadda qoyska waa qurux badan ayaa u baryay qoyska Ayaan iyo Ilyaas. Ayaan ayaa bilowday inay hooyadeed ka caawiso hawsha guriga. Markii la gaaray xilligii quraacda, qoyska oo dhan ayaa si wada jir ah u bilaabay inay u quraacdaan. Intaas kadib Ayaan, Ilyaas iyo hooyadood ayaa aaday magaalada, halka Ayaan iyo hooyadeed ay sheekaysanayaan, Ilyaasna uu dhinacooda ciyaarayo. Wiilkii Ilyaas ahaa ayaa waxaa ka daatay biyihii uu cabi lahaa, aad ayuuna u murugooda. Ayaan ayaana bilowday inay aamusiso Ilyaas. Markii la gaaray xilliga galabtii, Ayaan, Ilyaas iyo aabbahood ayaa soo fadhiistay jardiinka guriga. Aabbahood ayaa bilaabay inuu u sheekeeyo oo ay jawi qaataan. Intaas kadib, Ayaan yaa bilowday inay hooyadeed ka caawiso karinta cashada. Hooyadeedna waxay bilowday inay u sheekayso inta ay Ayaan cashada karinayso. Markii la gaaray habeenkiina, sidii caadada qoyska ahayd, waxay bilaabeen inay si wada jir ah u casheeyaan. Subaxdii markii la gaarayna, waxaynu arkaynaa Ayaan iyo Ilyaas oo doodaya joogana daynka guriga. Intaas kadib waxaynu arkaynaa Ayaan iyo Ilyaas oo caawinaya islaan waayeel ah oo qudaar suuqa uga soo gaday. Iyagoo la jooga arigooda, Ilyaas ayaa wuxuu siinayaa Ayaan ubax qurux badan. Ayaana iyadoo faraxsan ayay ka qaadaysaa ubaxa, waxaana soo daaya roob. Ayaan iyo Ilyaasna waxay bilaabayaan inay ku ciyaaraan roobka oo ku dhex ordaan. Kadib qoyska oo dhan ayaa bilaabaya inay ubixii ku beeraan dayrka gurigooda dhexdiisa si uu gurigu u noqdo mid qurxoon. Markii la gaaro habeenkii, aabbahood ayaa uga sheekaysnaya sheekooyin cajiib ah oo xiiso badan leh. Intaas kadib waxay u soo baxayaan bannaanka gurigooda oo waxay daawanayaan quruxda cirka. Jawi ayayna ku qaadanayaan bannaanka. waxaanu nahay qoys faraxsan. Waxaa diyaariyey sheekadan Kartooniya. Caruuray sabskraibdhaha channelka Kartooniya.